هذا عالمي كير انترناشنال ayaa dhismayaal dhinaca iskuulada u dhaga xigtay qaar kamid ah tuulooyinka hoostaga degmada Gardag sida tuulada Sincaro iyo Gowsawiniyada sidoo kalena dhagax dhigtay dugsiga hoose dhexe ee Gumburi iskuulada degmada Gardag hadaba munaasabadii dhagax dhiga iskuuladan ayaa ugu horreyn waxa halka ka hadlay qaar kamid ah odayaasha waayeelkii wax garadka tuulooyinka sidoo kalena ay halka ka hadleen maayirka degmada Gardag Faarax Aadan Ciise iyo kaasare oo ka socda hay'adda Keer Xasan Gacarigo dhamaantoodba ku nuuxnuuxsaday ahmiyadda ay u leeyihiin iskuuladan tuulooyinka sidoo kalena dadweynaha ku dhaqan tuulooyinkan iyo degmada Gardag ba ayaa doorka wax ku oolka ah hay'adda Keer oo ka qayb qaadato dhinaca waxbarashada ugu horreyn halka wax ka hadlay maayirka degmada Gardag mudane Faarax Aadan Ciise hadaladiisina waxa kamid ah sida tan rasuulillah halkan saaka waxaan ku bilaabanayna insha Allah inaynu isugu nimi shirkan waxaan ugu martiyaa in hay'adda Keer oo kulli degmada ka dhisi doonta dhowr tuulo oo degmada ka tirsan iskuul ka dhisi doonta qaar cusub iyo magaranaysa qaar dib u habayna marka hay'adda Keer waan soo dhaweynaynaa insha Allah waxaan leenahay si wanaagsan aan loo shaqeeyo kulli baahidu inta quraad maanta aad wadaan maaha ayaan mid kamid ah noqotay oo kumanaan iskuulada hoose dhexe ee Soomaaliland ka dhisan 8 iskuul oo kamid ah hadaan mid noqoteen waa chance fiican waxa la idin qabanayaa waxa la idin dhisayaa waxyaabo kale oo aan dhismahayn baa iskuulka laga qabanayaa oo qaadista gudiyada waxbarashada aqoontooda iyo macallimiinta iyo ardaydu siday wax u dhiganayso la tageeyo qalab ay ardaydu u sahlayeen inay wax dhigtaan haddii tumaashiriye ka mid tahay annaga oo la soconna hay'adda Keer oo dhismayaal ka fulinaysa waxbarashada degmada Gardag aniga iyo maayarkiiba halka waxaan u nimi in dugsiga hoose dhexe ee Sincaro oo baahi weyn u qabay dhismayaal dugsi inaan maanta dhagax dhignay laba kalaas oo lagu kordhinayo dugsiga hoose dhexe ee degmada magaalada Sincaro markii ugu horeysay hay'adda Keer marshuuc aan kale oo kale ay ka filisay tuulooyinka hoostiga degmada Gardag waa madal Snayre muqbaahiyaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Gardag